caqliga dhabtahay iyo mufakkirnimada iyo filosofnimada dhabtahay waa tan naar kaa badbaadisa. ama hadduu caqligaaga iyo intelligencekaaga iyo kartidaada iyo qofnimadaadu cadaab kaa badbaadin kari waayaan, waa nothing. ilaahay aakhire qaar buu tilmaamaya la odhanayo war maxaa naarta idin geliyey? waqaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir bay leeyihin. dunida markaanu joognay haddaanu dhega yeelan lahayn ama caqli aanu qabi lahayn bay leeyihin. yani caqligu hadduu ku dhaafiyo aakhirada dhan caqli maaha. asxaabu saciirka kumaanan biireen bay leeyihin haddaanu markaanu dunida joognay dad raashanala aanu ahaan lahayn, dad caqliga isticmaala haddaanu ahaan lahayn. waayo caqliga toosani wuxuu keenaya inaad aakhira rumayso, inaad rabu samaawaati walarda rumayso, inaad rususha rumayso keenaya. ayuha alikhwa, wadanadan aad joogtaan dhaldhalaalka nololeed baa bini aadamka mashquuliyey. sayniska iyo aqoonta bini aadamkee la sheegayo dham waa one thing buu qabtaa. all science muxuu qabtaa? waxay dhahdaan space and time buu yareeyaa bes. marka aqoonta bini aadamku korodhaba timekii wax lagu qabanayay efficiency-gii wuu kordhaa, spacekii qalabka la isticmaalayay la dhigayana wuu la yarayn karaa. waa intaa u qarnigan iyo qarnigii hore labadaba waa la noolaayay. qalabka la isticmaalayana wuu kala yarayay, wuu sii yaraanaya. timeka wax lagu qabanayaana wuu soo yaraanaya. intaasuu technologyga tirada badan la sheegaya uu keena. laakiin waxa ka dambeeya intan oo dhan kullu nafsin daa'iqati lmowt, daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz. alfaa'izuun 4 aayadood baa qur-aanka ku soo aroray. faa'izuun 4 iyaga waxay ka warramayaan aakhira. 16 aayadood baa alfawz alcadiim aw fawz alkabiir aw fawz almubiin ku soo arooray. 16 kuba waxay ka warramayaan aakhira. kaannamaa qur-aanku aanu ictiraafsanayn fawz aan ka ahayn inaanu jirinba. waxaan kaloo dhami inay yihiin wax lagu madadaasho, wax wakhti yar shaqeeya. amaa fawzka dhabtahay waa kaa jid qulana wuu leeyahy. yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waquluu qawlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. jidka loo maro kaa in lagu guulaystaana waa kaa. marka waxaan ku soo koobayaa adduunkan iyo xoogsigiisa in badan laysuma tilmaamo naftaada ku mashquula. waxaan rabaa inaad nolosha meel kaga dartaan aakhiro xoogsigeeda. aakhiro xoogsigeeda inaad nolosha meel kaga darto, inaad ogaato guushaada dhabta ah iyo nolosha waxaad fahamtay marka aad garato waxa aad u nooshay. wailaa waana lagu dhalay waana dhimatay, waxay qiimo samaynayso kale ma jirto. ilaahay waxaan ka barayaa subxaana wa tacaala inuu noloshayna fahamsiiyo. saxaabadii markay noloshaas si dhaba u fahmeen ayay adduunkanna magac iyo maamus ku yeeshay. adduunkanna markaasay wax ka bedeleen. markii hore niman reer baadiye ah oo iska xoola dhaqata oo waxba haysanin, haddii xoola lagu xisaabtamo la odhan karo waa caydh. haddii magac iyo maamus lagu xisaabtamo dowlad ba aan ahayn. saxaaraha ku nool waxa bedelay oo markay aakhira dhadhan u samaysay. markaasay adduunkanna magac iyo maamuus ku yeesheen. within 50 years ayay mashriq iyo maqrib kaga taliyeen. wixii dunida dowlad jirtay dhaafeen. labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa ka xoog badiyeen, nolosha qiimo u sameeyeen, dunida maamuleen, iyagoo tii aakhirana ku guulaystay. muslimku hadduu taa ilaabo tanna guulaysan maayo. aakhirana dee ilaahay baa garanaya, kama muuqato. waddada la hayaa maaha tii aakhirana lagu gaadhaya, adduunna lagu gaadhaya. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.